waa kana asxaabteeda qaaliga ah kabaabkeeni si easy aan kusoo sameyno fudeed ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga waan islaamay waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan iyo nabad qabtaan sidaan anigana maxaan dhahay anoo nabad qabo idinkugu soo noqday inaad idinkana igu soo noqon doontaan insha allahu tacaala. walaalayga qaaliga buuxa yara karaa noqdo dhar u dhaqmaayo waaye dhar ku jiro marka walaalayga qaaliga waxaan rabaa inaan idinla wadaago kabaab yar. kabaabkaas waxaan ka sameyneynaa ilaahay ka raali noqdo malaygan kalluun iyo malay hadba kaa u taqaanid iyo waxaan ka sameyneynaa bataato ama baradho saa u taqaanid iyo kabsar iyo waxaan ku dareynaa basal baar basal cad carfiskana waan ku dareynaa gadaal ugu soo dareynaa. marka waxaan sameyneynaa malaygan waan soo jaraaya hadduu ilaahay yiraaho biyahan waan ka miiri doonaa iyo saliida waxaan soo fiiqayaa baradhada biyahan kusoo kariyey waan noo fiiqayaa insha allah hadduu ilaahay yiraaho saan isugu dardarayna waa idinla wadaagayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. malay waa soo jarnay marka inaan miirno waaye maraq iyo wuxuu leeyahay saliid oo saa'id saa aniga aan u arko hadhowto wax dhan jileecay kaa naqaan hadaa ku dartid saas darteeda waan ka miirayaa. wax walba jileec noqon lahaye ka bush gareena hataa taas kurida baaquligaas isku geena waxa dhan. asxaabteeda qaaliga waxaan jeclaa wax walba inaan idinla wadaago insha allah. sorry marka subscribe-ka like hilmaamin like-ta share-ta insha allahu tacaala asxaabteeda quruxda badan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinayaa. mar walba waxaan leeyahay mahadsanidina sidaa ila socotaan quruxda badan waa idinkaga mahad celinayaa iyo sidaa ii sharafteen oo mar walba ii soo dhaweysaan markaan soo dhigo commentiga aad ka bixinaysaan waxaan soo dhigay aad uu qurux badan yahay qaar allah idin siiyo. adduunyada waxaan jeclaa qof niyadda ii dhiso oo dadka niyadda ka dhaawacin aan jeclahay dadka niyadda ka dhaawaca waa necab aniga waayo aniga sida ma ihi waxaan jeclahay qofka wax sameynaya markaan arko inaan macnaha aniga aan maxaa dhahaye aan niyad u dhisaan jeclahay insha allah. asxaabteena intaas saliid qoyaanaha ka miirno malayga kalluunkii macnaa waa kaasaa soo qaleele hadduu ilaahay yiraaho halkaasa beela waaye haddana baradhadayna waxaan rabaa inaan marka jijibino laakiin kanaa weyn inaan ku jibiya isku dayaaya. asxaabtaa soo jibiye baaquli kale kusoo jibiye intaan kusoo dhex shubo marka baradhadii iyo malayga isku qasayaa waxaan kusoo darayaa qudaartaan ku dhex daraa waxaan rabaa inaan haddii saan aa iskugu qastid taas ku shubtid gacanteeda ku qasayaa carfiska ku daraa horta
dhanaan iyo filfil ku daraya xawaajiya ku dara xoogaa yar cusbaa ku dara ku badinayo cusbo liin dhanaanta macnaha haddii uu xoogaa liin dhanaan lagu daro cusbada haddii ka badisid malaygana cusbuu leeyahay waxay noqonayaan wixii kaata caliish macnaha wax oo wax jira ahayn cusbo darteed lagu cuni karno noqonaa saas darteeda intuu karaal noqdo waa isdhexgelinaa si fiican aa isdhexgelinaa waxaa rabaa wax yaroo maasha allah tabaarakallah inay noqdaan oo dhadhan fiican oo dhanaan saa'idna ahaynin sida loogu talagalay adig markii la soomeeyaa cusbada dadka way dhibeen waxa dhanaan waxaa laga yaabaa inay xanuun ka qaadaan oo macnaha dhiigkar ama maxaa dhahay waxyaabo kale laga helo cusbada xanuun badan ay keentaa marka inta soomeeyaa cusbada badan hala iska ilaaliyo laaleega qaaliga sida waana iga tahay cusbada wax kasta aniga inta badan laba xabo jumbo la bidaa cusbada in cajiin ku qasamaahan isticmaala marka waa isku dhex jiraa wixii aad ku dhexdaa dhowti ah macnaha ukun yaraa soo qasanaya iyo waxaa qoy lahay insha allah asxaabteeda wax yar buraa meesha ku jiro waxaan ku darayaa hal qaado waraange ah si hadhowti wax qajac igu noqdaan waxaan rabaa inaan dhexgeliyo waxaa ku soo hare waa isku dhexgelinayaa oo korkiisa macnaha oo maasha allah kabaabkii noqda rabaa waa ku geedinaa lebis soo isku dhexgelinaa markaas maasha allah waxaan ku sameynayaa ukunta waxaa rabaa waxeeda oo macnaha cadka ah weydka rabaa bis macnaha marabi sheeg inuu wax yalowga ii soo galo waxaan okay ka dhamaadeen marka taas waa iska reebaya intaasna waa isticmaaleynaa insha allah dibkaa saarana marka asxaabteeda qaaliga birtaa dibka soo saaranay inaan dubno waayo marka inta saliidaa kusoo shubay isku dhiganaaya saas gacanteeda leesan ku dhaxa haddana waa balaarinaya gacanteeda la ku simaya waxaan sameynayaa saana dhahaya markaan kan ka soo bixiyo korkiyaa ku dhex ridaya markaas saliiddaa ku dhex ridaa markaas dana hadana saana kabaabkii soo qaadanaya malaygii wixii gacanteeda ku celcelinaya markaasa hadana saana balaarinaya waxaan ku dhex ridayaa
ukunti kasoo bixinaa hadana inta burksan ku dhahaya taasa saliidda ku dhex ridaya saasa kusoo wadaya asxaabteeda saan kusoo wadaya waan soo wadaya waa kana asxaabteeda qaaliga ah kabaabkeeni si easy aan kusoo sameyno fudeed buriran aan soo dhex gelinay iyo ukunta xabkeedii maasha Allah tabaarakallah ilaahay sana noo suurta geliyay ilaah ku mahad leh alxamdulillahi rabbil caalamiin waan ka soo ujeedin basbaaskeeni ilaa dhexda soo dhiganay wax walba diyaar waaye maasha Allah tabaarakallah walaalay qaaliga hadda ka hesheen like daha haddii aan macnaha aad ka hesheen like daha haddii aan maxay ahaydee aad jeclaysteen asxaabtiin la wadaaga subscribe na isaar hadda igu cusubtiin walaalayga qaaliga waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareysaan channelkayga channelkiina wuu yahay kaligay malihi waayo wax badan oo laga faa'iida ayaa ku jira channelkayga hadda sii baartaan insha Allah walaalayga qaaliga taageeradiina ayaan kusoo gaaray heerkaan inaan maalin walba video soo sameeyo haddii aan idinka ahayn soo sameyn lahayn walaalayga qaaliga la gareeyo insha Allah tacaala waxaan rajeynaa inaad ka heli doontaan sida aan sameeyay sida quruxda badan leh inaad ka heli doontaan rajeynaa insha Allah hadda waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.